Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wiilka ugu shacbiyada badan TikTok adduunka oo dhan ee lagu magacaabo Khaby Lame ayaa ugu dambeyntii ka hadlay su'aalaha ku saabsan diintiisa. Khaby Lame oo ah shaqsiga ugu caansan baraha bulshada oo dhowaan kaalintaas kala wareegay gabadha lagu magacaabo Charli, ayaa shaaca ka qaaday in aanu ahayn kaliya Muslim ku dhaqma diintiisa, balse uu sidoo kale yahay xaafidul Qur'aan. Khaby Lame oo la hadlaya mid ka mid ah warbaahinta Talyaaniga ayaa ka jawaabay su'aashii ugu badnayd ee la weydiiyay ee ku saabsanayd diintiisa. Wuxuu yiri, "Haa, waxaan ahay Muslim ku dhaqma diintiisa. Ma garanayo wax kale oo aan iraahdo." Lame oo ah 22 sano jir oo ku dhashay Senegal ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qoyskiisu ay u guureen Talyaaniga isagoo sanad jir ah, waxaana loo diray dugsi Qur'aan oo ku yaala meel u dhow magaalada Dakar si uu xaafidul Qur'aan u noqdo, waxayna taasi u sahashay inuu Qur'aanka xifdiyo markii uu ahaa 14 jir. Xiddiga reer Senegal ee TikTok Khaby Lame ayaa hadda ah qofka ugu followers-ka badan TikTokers-ka adduunka oo dhan. Waxaa bartiisa ku xidhan dadka ugu badan TikTok isaga oo aan wax kelmad ah dhihin. Wuxuu dhaafay gabadha markii hore ku jirtay kaalinta koowaad ee la yiraahdo Charli. Khaby Lame wuxuu hadda haystaa 147 milyan oo qof oo ku xidhan bartiisa TikTok marka la barbar dhigo gabadha Charli oo haysta 144.2 milyan oo qof. Bishii November ee 2022, gabadha lagu magacaabo Charli waxay noqotay qofkii ugu horeeyay ee TikTok isticmaala ee hela 100 milyan oo qof oo ku xidhan. Sida fudud ee uu ku bilaabay TikTok bishii Maarch ee sanadkii 2020 waxay ahayd maalmihii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus. Khaby Lame waxa uu waayay shaqo uu ku haystay warshad ku taala meel u dhow magaalada waqooyiga Talyaaniga ee Turin. Wuxuu iska joogay guriga waalidiintiisa halkaas oo ay kula noolaayeen 3 walaalo ah. Shaqo kale ayuuna rajeynayay. Xilligaas ayaa sidoo kale ahayd markii ugu horeysay ee uu isticmaalay TikTok, sida uu ku warramay wargeyska New York Times. Khaby Lame wuxuu leeyahay gacmo dhaadheer iyo weji dhuuban. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo dejistay abka TikTok wuxuuna bilaabay inuu muuqaalo isaga soo duubo qolkiisa jiifka. Muuqaalada uu soo dhigi jiray wuxuu ka soo gelin jiray ciwaan wata magaciisa Khaby Lame. Wixii markaa ka bilowday wuxuu noqday xiddig ka caan ah TikTok. Muuqaaladiisa la yaabka leh ayaa dadka soo jiitay. Markii hore sida dad badan ay sameeyeen, TikTok wuxuu soo gelin jiray muuqaalo iskaga soo duubay isagoo qoobka ciyaar sameynaya, ciyaaro daawanaya ama sameynaya waxyaalo shactiro ah. Khaby Lame wuxuu muuqaaladiisa oo dhan caalamka gaarsiiyay isagoo aamusan. Aamusnaantiisu waa mid ka dhan ah hadal. Fikrad ayaan la imi sababtoo ah waxaan arki jiray muuqaalo wareegaya, waxaana jeclaystay in aan ku soo daro aragti wax fududayn karta, ayuu ku yiri wareysi uu siiyay telefishinka CNN. Sanadkan ayuu isbedel la yimid kadib markii uu bilaabay inuu majaajilo ka dhigo xeelado la xiriira nolosha, uuna muuqaalo ka soo diyaariyay isagoo ka falcelinaya ficilo ay dad kale sameeyeen. Hal ereyna ma soo raaciyay muuqaaladiisa falcelinta ah. Waxaa lagu tilmaamaa hadda inuu yahay ninka ugu taageerada badan uguna caansan TikTok. Qofka ku soo xiga oo ah Charli oo ah gabadh dhowr iyo 10 sano jir ah oo kasoo jeeda California, waxay soo bandhigtaa muuqaalo qoobka ciyaar ah, inta badanna ay la soo sameyso walaasheed. Muuqaaladiisu waa hal nooc oo inta badan gaagaaban. Wuxuu gacmaha ku tilmaamaa muuqaalo ay dad kale soo sameeyeen iyagoo fulinaya xeelado dhanka nolosha ah oo adag. Wuxuu ugu jawaabaa muuqaaladiisa si sahlan oo macquul gal ah oo lagu xalinayo isla arrimihii la adkeeyay. Mid ka mid ah muuqaaladiisa, Lame wuxuu gacantiisa ku fiiqayaa muus isagoo tilmaamaya qof muus mindi ku fiiqayay kadibna ku jarjaraya. Midda kale wuxuu ka falcelinayaa muuqaal ay haweeney iska soo duubtay iyadoo si dhib badan u fiiqaysa qanjaar ay ilkaheeda u adeegsanayso. Isagoo hoga tusaaleynaya ayuu ajaar ku fiiqayaa aalad yar oo loogu talagalay in khudaarta lagu fiiqo. Waxaa laga yaabaa in sida aan wejiga ka dhigayo ay tahay qaab shactiro ah, hawsha aan fududaynayana ay ka qoslinayso dadka. Taas ayaana jeclahay, ayuu yiri. Marka qaar indhaha oo kaliya ayuu dhaqaajiyaa, madaxana wuu ruxaa isagoo aan gacmaha ku dareynin. Dad badan ayaa isaga qudhiisa muuqaaladiisa dib u adeegsada ama qaabka tilmaantiisa ka minguuriya. Falcelintiisa marka laga soo tago labada gacmood ee uu ku taago waxa uu tilmaamayo, wuxuu sidoo kale ruxaa madaxa kadib marka uu sheego qaabka sahlan ee laga rabay in hawsha loo fuliyo. Gacmaha wuxuu soo fidiyaa isagoo ay calaacalihiisu kor u jeedaan.